shanta wadan ee ugu amniga fiican ee ay gabdhaha ama dumarka ay u safri karaan iyagoo aan kala kulmeynin wax caqabad ah ama qashqashaad ah intii ay joogaan wadamadaasi. intaan ugu galin warbixintan ku saabsan sheekadaasi waxaan ka codsanaynaa hadii ay tahay markii kugu horeyso aad soo booqato in aad nagu soo biirto mahadsanid. iyadoo ay sii kordhayaan tirada dadka kalinimada ku safraya ayaa haddana waxaa jira caqabado ay la kulmaan dumarka kaligooda safraya, balse waxaa jira wadamo ku fiican sugidda amniga dumarka safarka ku taga. tan iyo markii uu dilaacay xanuunka COVID-19 waxaa batay dadka kaligooda safraya oo xataa ma isa sugaan dadka lamaanaha ah ama safarada isku raaca. caabuqa COVID-19 ayaa caqabadaasi sababay, balse dumarka ayaa la kulmi jiray caqabado fara badan marka ay kaligooda safrayaan. daraasad ay sameysay hay'ad fadhigeedu yahay dalka Norway ayaa waxa ay sheegtay in 3 qof ee caalamka hadda u safraya oo mid kamid ah yahay qof dumar ah. waxa ayna sheegtay in sanadkii 2019 dumarka kaligood safra ay ahaan jirtay 4%, halka sanadkii 2022 ay noqotay 18% dumarka kaligooda safraya. waxa ay daraasada intaasi ku dartay in dumarka 65 sano ka weyn ay hadda ku badan yihiin safarka kalinimada. haddaba shanta dal ee ugu sareeya liiska dalalka ay nabad ugu badan ka helaan dumarka ayaa kala ah. wadanka koowaad ayaa ah wadanka la yiraahdo Slovenia. wadanka Slovenia ayaa noqday dalka ugu sareeya dhinaca amniga nabadda ee bariga iyo bartamaha qaaradda Yurub. sanadihii la soo dhaafay ayuu wadankan sare u sii qaaday xaqiijinta amniga haweenka, waxaana nabad buuxda ku hela 85% dumarka ku nool dalkaasi. dalka labaad waa dalka la yiraahdo Rwanda. dalka Rwanda oo baarlamaankiisa ay ku jiraan tirada ugu badan ee haweenka ah ayaa waxa uu adduunka oo dhan kaalinta koowaad ugu jira dhinaca sinnaanta jinsiga ee aqalka baarlamaanka, sida lagu qeexay xogta ay sameysay jaamacadda. kaalinta lixaad ayuu wadanka Rwanda ugu jira dunida marka laga hadlayo xaqiijinta sinnaanta ragga iyo dumarka. dalka saddexaad ee lagu sheegay daraasadan ee dumarka ay ka helaan amniga ugu badan ama ugu fiican ayaa ah wadanka Isutaga Imaaraadka Carabta. wadanka Isutaga Imaaraadka Carabta ayaa noqday dalka ay nabadda ugu badan ku helaan haweenka ku nool guud ahaan dalalka Khaliijka. waxa uu sidoo kale kaalinta koowaad ugu jira xaqiijinta nabadda dumarka, iyadoo 98.5% ka mid ah dumarka dalkaasi ay da'doodu ka sareyso 15 sheegeen in ay nabadgelyo dareemaan marka ay kaligooda socdaan xilliyada habeenkii. magaalada Dubai ayaa si gaar ah loogu aqoonsaday magaalada ay amniga ugu weyn ay ku helaan dumarka kaligooda safra. wadanka afraad ee lagu sheegay daraasadan ayaa ah wadanka Japan. wadanka Japan waxa uu ku jiraa liiska 10 dal ee ugu amniga fiican caalamka, sida lagu xusay xogta hay'adda daraasaysa nabadgelyada caalamka. aad ayay u yartahay in dambiyo ay ka dhacaan dalkaasi. waxa uu wadankan leeyahay gawaari dhulka hoostiisa mara oo ay raacaan dumarka oo kaliya. sidoo kale waxa uu leeyahay hoteelo loo ogolaado haweenka oo kaliya in ay degaan. dalka shanaad ee ah dalka ugu dambeeya ee lagu sheegay daraasadan ee ay dhibaatada kala kulmin dumarka ku nool iyo dumarka u soo socdaala ayaa ah dalka Norway. Norway waxa uu adduunka kaalinta koowaad ugu jira xaqiijinta amniga dumarka ee guud ahaan dunida oo dhan. kama jiraan cabashooyin la xiriira cunsuriyadda dhinaca sharciga ah ee ay la kulmaan dumarka. waxa uu dalkan Norway sidoo kale ka mid yahay 10 wadan ee heerka ugu sareeya ka gaaray xaqiijinta sinnaanta ragga iyo dumarka. waxaa sidoo kale xusid mudan in uu ku jiro dalalka ay ku nool yihiin shacabka ugu farxadda badan adduunka oo dhan. haddaba shantan dal ayaa loo aqoonsaday shanta dal ay dumarka ku helaan xorriyad buuxda marka ay u soo safraan iyaga oo kaligood ah. sidoo kale dumarka ku nool wadamadan aynu soo xusnay ayaa loo aqoonsaday in ay yihiin dumarka ugu amniga fiican caalamka oo idil.